بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتضبيل واتنك بشهر رمضان كنا أفر بقول لبيا أفرتنك هجرة ووافق سن سقالك بشمي لبكون إيو لباتن يكو برنامج كيني سؤالها ديني قاوي نمرنا حلقة ديسي صدحية طبناد waxaynu ku bilaabaynaa saa'ilka koobaad wuxuu yidhi assalaamu calaykum salaan kadib waa cabdi magan ama xaaji cabdi magan waxaa sheekha weydiin lahaa buu yidhi safka hore masaajidka yaa u xaq leh inuu fadhiisto su-aasha labaad waxaa soo qoray saa'il magaciisa la yidhaha xuseen sheekh cali wuxuu yidhi xadiiska odhanaya qofka sooma rabadaan lixda shawaalkana raaciya wuxuu ka dhigan yahay qof sanadkao dhan soomay miyuu soo gelayaa qofkii bisha rabadaan wax ka mida cudurdaar ku dhaafay sida gabadhii aan daahirka ahayn qofkii musaafirka kii xanuunsanayay iyo dadkii la midka ahaa su-aasha saddexaad waa hooyo xaliimo oo joogta dalka Sweden waxay tidhi ay baa isoo weeraray qoyan kadibna gabadhii ayga wadatay baa iga celisay isagoo weli aan soo gaadhin gabadhaas way taabatay gacanta ay ku taabatay baa anigana igu sii taabatay iyadoo raali gelinaysa ayga qoyan ee gabadhaas ay taabatay aniga taabashada iyadoo ay sii taabatay miyay wax nijaas ay soo gaarsiinaysaa haday soo gaarsiinaysa sidee loo nadiifinaya su-aasha afraad wuxuu yidhi waxaan rabaa saa'ilka soo qoray magaciisa muu sheegay wuxuu waxaan rabaa shaqadii aan ka shaqaynay inaan qof ku wareejiyo kadibna aanu ku heshiino wixii aan qaadan jiray 3 meelood marka loo qaybiyo inaan 2 meelood isaga siiyo meel anigu aan qaato arrintaasi ma saxbaa su-aasha shanaad wuxuu yidhi salaan kadib magacaygu waa cabdiqani waxaan joogaa magaalada hargeysa su-aasheedu waxa weeyaan buu yidhi haddii anigoo awooda inaan iska bixiyo sakaato fitrida qof kale igu yidhaahdo adig iyo ehelkaba anaa idinka bixinaya miyay ansaxaysaa su-aasha lixaad waa maxamed cumar oo jooga boorama imaamka haddii aan atixiyaadka kaga hadho ma ii bannaan tahay oo waxoogay anigu aan ducadii iyo sii wato markaa saligii nebiga calayh isalaatu wasalaam su-aasha toddobaad saa'ilka soo qoray wuxuu uhi waxaana askari boolisa waxaana soo mara maandooriya sida khamriga oo kale meelaha xuduudihii aanu joogno kadibna markaanu isnidhaano wax ka qabto hub bay noola soo baxaan dadka wata annagana madaxdana maamushe naga sarreysaa waxay amar nagu siisaa inaanu rasaasayno waxa halkaa ka dhacee dhimasho iyo dhaawac leh ayaa ka mas-uula su-aasha ugu dambaysa wixii saa'ilka soo qoray aabbahay ayaa si gaar xoolo ii siiyey caruurtayada kalena qaar uu siiyey iyo qaar aan u siinba way jiraan ma ii bannaan tahay xoolaha aabba sida gaarka ii siiyey inaan qaato kusoo dhow sheekh maxamed الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبيه الكريم والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم وبعد صفك هروحك وحق لا إدي أصه الرئيسة ما هي راضو أما هوينادو ولبا أصه الرئين تاسنا والشخصي أهانا ما هقول لك تيا وحا نبينا صلى الله عليه وسلم أحب تلمامي صفك هوري أذان كتتكو هدي آي أوجيه وحا داقها كسوغان وسيك لا آني وهيلي كرينين ويقر تورا لهاي intan imaamka labada qof ku beegan iyaga waxa loo dayn doonaa dadka xufaada ah ama fuqahada ah ee sixi kara imaamku hadduu khaldamo liyalini ulul ahlaami minkum wanuha nabiguna wuxuu lahaa igu soo dhawaadaan kuwiina daada iyo aqoonta leh caqliga iyo daada dabcan cilmina waa la socdaa inta kale laakiin tartankaasaa loo galayaa su-aashan odhanaysa qofkii cudurdaar lahaa miyuu la mid noqonayaa kii ramadaan iyo shawaal soomay dabcan kuu nebigu ka warramayaa bilficli qofkii u soomay weeye ee soomkii fuliyey kaasi iyo kii aan waxba soomin dabcan isku mid maaha laakiin waxay nusuustu sheegaysaa qofku hadduu cudurdaar leeyo cibaadadu cudurdaar ka kaxeeya inuu ajrigii ilaahay u qorayo ajrigii qofkan cibaadaystee waynu u rajaynaynaa inuu ilaahay u qoro laakiin kuu nebigu ka hadlayaa waxa weeye ka soom dhaba la yimeen ramadaan iyo shawaal soomay ayga qofkii gacan qoyan gacantiisa ku taabtay qoyaankiisii adiga ku soo gaadhsiiyey waa adigoo aygii taabtay oo kale un marka 7 jeer baad iska maydhiya marciidda ahaa
sida xadiidka nabiga ku cad sala allahu calayhi wasalam shaqada aada sheegtay inuu qof ka shaqaynayo adiguna hore aada uga shaqayn jirtay wixii ka soo baxana iminka kala qaybsanaysaa waa in cidda maamulka loo shaqaynaya waa inay idinla ogyihiin haddii kale khiyaamay noqonaysa gaaliya islaam cid kasta ha haatee cidda loo shaqaynayaa farsamada a wax ku qaybsanaysaan waa inay idinla ogyihiin marka haddii labadii niyo loo shaqeeyihii isla ogtiin xalaal bay noqonaysa haddii kale caqadka waxa galay adigaa la galay musta'jar baad ahayd qof la kiraystay markaa shakhsiyadaadaa la doonayay cidda kaleed ku bedelaysa haddii aan la ansixinin oo loo shaqeeyihi aanu ansixin khiyaamay noqonaysa sekada hadduu qof idhaahdo sakaad fidriga waan kaa bixinayaa ma sii bixin karaa aniguna dabcan xoolo uu ku siiyuun bay noqonaysa adigoo wax iska haysta oo sakaad fidrigii bixin karaa hadduu qofku idhaahdo anna waan kaa bixiye waa deequ ku siiyey waad iska guddooman oo waad qaadan doontaa sakaad fidrigana ama taadan tan uu ku siiye ka bixi ama tii hore ka bixiyo dee waajib bay kugu ahay su-aasha ah ee uu leeyahay ma'muunkii la tukinayey ma ka dib dhici karaa imaamka si aan ataxiyaadka ugu soo ducaysto ataxiyaadka hore lagumaba ducaystaba salliga nebigaa lagu joojiyaa ataxiyaadka dambe ayaa lagu ducaystaa sideedabana imaamka inaad ka hadha maaha inamaa jucila alimaamu liyutama bihi xadiid saxiixa nebigu waxau ku uhi imaamkan halkan waxa loo joojiye oo loogu talagalay in la daba socdo inaad ka dib dhacday inaad ka horeyso labaduba waa mukhaalafo sharci oo lagu ogolayn ka hadhi may sida horey baad ka raacaysa ninkaa odayga ee odhanaya amar baana la siiyo waxaa la yidhi dad dembiilayaalo rasaas ku furayaa lagu leeyahay taasi waa arrin u taalla garsoorka iyo dadka wax lagu dhuftay iyo kii ku dhuftay iyo kii amray ayaa maxkamadda isla tegi doona waalidku haddii uu aniga un gaar ahaan waxii siiyo ma qaadan karaa waad qaadan kartaa ha haddaad la wareegtana waad milkiyeysa mas-uuliyadda adigu malihida waalidka ayay cadaalad samayntu saaran tahay inuu caruurta u cadaalad sameeyo laakiin ciddii uu waxsiiya way iska qaadan karta wallaahu aclam waxaa jira qolyo dad aada uga xanuunsanaya u baahaynayaa jiro oo aynu ku yar xaq dhowraynaa shantii su-aalooda dambe fasax baynu ka ahaan doonaa idinkuna ha ka yaacine markay idinku yeedhiyaan wixii a u heshaan siiya soomka sadaqada salaada waynu israacinaynaa wallahu aclam جزاك الله خير وبارك الله فيك واحسن الله اليك السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته